Shushu Cabdallah marka hore waa kusoo dhaweynaya marka xigta waxaan kaaga tacsiideynaa geerida ku timid Aboowe waa kusoo dhaweynaya walaalo aad uma santay Aboowe sida ku badan ay la soo qayb gashay Shushu Aboowe bal dad badan ku daawanaya bal qaabka uu dhintay dad badankii way isweydiinayaan bal xog kooban inaga sii qaabkii uu dhintay ma la dilay mise jazeero galinta wiilka Allah u naxariisto marka makaa weynaa mise uu ka yaraa dad badan isweydiinayaan wiilkii oo TikTok ay soo wada Shushu Cabdallah oo ka mid ah TikTokerada Soomaalida kuwada ugu caansan ayaa walaalkeeda ku geeriyooday deegaanka Jasiira waxaana ku dhacday xabad. Shushu Cabdallah oo faahfaahinaysa qaabka uu dhintay walaalkeeda ayaa sheegtay xabaddaasi meel ay ka timid aan la garanaynin. Allah u naxariisto ayaa leenahay Shushu Cabdallah walaalkeeda. fadlan muuqaalka like saar una duceey Shushu Cabdallah walaalkeeda inuu Allah subhanahu wa ta'ala qabrigiisa u waasiciyo ehelkiisana in uu Allah qalbigooda u qaboojiyo. waxaan leenahay Shushu Cabdallah Allah u naxariisto walaalkaada Allahna qalbigaaga ha ku qaboojiyo ayaan ku leenahay Shushu Cabdallah. Shushu Cabdallah walaalkeeda asagoo ku sugan deegaanka Jasiiro ah meel loo dalxiis tago ayaa xabad meel ee ka timaaday iyo meel kale aan la garanaynin ayaa ku dhacday sidaasi ayuuna ku geeriyooday sida ay sheegtay Shushu Cabdallah oo ka mid ah gabdhaha isticmaala barta TikTok oo ka mid ah gabdhaha ugu dhaqanka wanaagsan oo lagu amaano in ay tahay gabadha midabkeeda aan bedelin. Shushu Cabdallah waxaan leenahay Allah u naxariisto Aboowe qalbigana Allah ha qaboojiyo ayaan ku leenahay walaasheena Shushu Cabdallah. daawadayaasha waxaan leenahay fadlan u soo duceeya Shushu Cabdallah walaalkeeda in uu Allah qabrigiisa u waasiciyo iyo ehelkiisana inuu Allah qalbigooda u qaboojiyo. waxaan idin leenahay Allah qabrigiisa ha u waasiciyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto walaalkaada Shushu Cabdallah aan u duceyno. fadlan muuqaalka like saar siina share gareey si ay dad badan ugu duceeyaan Shushu Cabdallah walaalkeeda uu ku geeriyooday deegaanka Jasiiro oo ah meel loo dalxiis tago. intaasi ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena waxay idinka tagaan sidaas iyo ilaaha maad iska leh meel inta ka fiican oo aadi Allah u waasiciyo meesha uu joogay Allah u qaboojiyo leeyahay. marka dadka waxay isweydiinayaan kulli Jasiiro ayuu ku dhintay Jasiiro marka qaabku ugu dhintay markii Jasiiro la dadku waxa ku soo dhacay badda moogtaa ma xabada ku dhacday xabada marka xabad la qasdaamis wallahi midaas ay lama xaqiijin karo anigana midaas kama warahayo. okay inta lagu aasay marka lagu aasay lagu aasay guud ahaan dadka hadda kula socda maxaa jecel lahayd maadaama Aboowe dhintay Allah u naxariisto murugada iyo tiiraayada anagoo kula qaybsanayna sadartana ku soo wacnay bal dareenkaaga bal dadka ugu dambeyn fariin la wadaag maxaa jecel lahayd. waxaan jeclaan lahaa hal arin inay noo sameeyaan inay noo soo duceeyaan inay u duceeyaan walaalkeyga inuu jannatul firdaws Allah ku bishaareeyo inta muslim dhimatay Allah inuu u naxariisto